السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي وأختي العزيزة. مربتا إن برتو اسم الله الأعظم مقع إلهي وين ومتك هدي إلهي لغو بريو إلهي وأجيب يقفك وحي لوي ديستنا والله سبحانه وتعالى روح السينيو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحو كل عرتي ducadan soo socota inuu ku jiro ismullahi al-acdam. ducadu waxa weeye markuu maqlay nin asxaabta ka mid ahoo atixiyaadka ku aqrinaya ducadan ayaa rasuulku sallallahu alayhi wasallam uu ka hadlay allahumma inni as'aluka bi anna laka alhamd la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka al-mannan ya badi'a as-samawati wal-ard يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أنكو عليو اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. رسولكم مركب مغلى الدعاء نن أقرنا يا وحو كييري مقرنا يسان وحو إلهي كبر يقف كان وحليل مايا وحول والذي نفسي بيده waxaan ku dhaartay macbuudka naftaydu gacantiisa ay ku jirtee wuxuu ku bariyay ismullaahi al-acdam oo ah magaca ilaahay ee weyn oo ah midka haddii ilaahay lagu baryo ilaahay ajiibayo midka haddii wax lagu weydiistana qofka uu siinayo. ismullaahi al-acdam waa la qariyay wuu qarsoon yahay sida jumcada ay ugu jirto saacatul ijaabo aan la garan karaynin xilliga saacadda saasi tahay ee loo qariyay baa magaca ilaahay ee acdamka ana loo qariyay sida laylatul qadriga loo qariyay ee bisha ugu dhex jirtaa isagana loo qariyay. marka magacyadan ilaahay ee ku taxan waa midkee allahu aclam. culimada qaar sida ibnul qayyim iyo keyrkii waxay rajaxayaan inuu ku jiro الحي القيوم لبدا مقع مدكود إنو يهي بيرجحيان لكن إتوس وقرانيسا مالي دعادا مركا هداد أقرده وحا قرانتئة إنو اسم الله الأعلم كجره إنو كجره اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم intaasoo magac mid ka mida buu noqon karaa. ducadaas atixiyaadka ku aqriso, sujuudda ku aqriso, xilligaad ilaahay qunuudka ku aqriso, xilliga alla ku waafajiyo ku aqriso. wajazaakum allahu khayr. haddii aad u baahdo inaad xifdido ood korka ka qabato kitaabka xisnu muslimka ah ducadaasi waxay uga taalaa bejka 45 45 ee bogga 45aad ayaad ka heli doontaa. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.